ugu jeedinay walaalkay mahad oo halkan isku keenay maanta aniga mahad gaar u iga mudan yahay sababtoo ah meelaha qaar markaan tago dadka magacayga la yaabi jireen hoosow marka la dhaho marka maanta waa ku faraxsanahay inuu keenay xeefo iyo sheego marka u dib iyo dad magacyadooda isla marka taas oo ku mahadsantahay sanad soo socdana keen kuwaas oo kale markuu posterka soo qoray oo bogga maandeeq uu soo geliyay dad baa waxay dhaheen dadkan inay qaran dumis yihiin magacyadooda ka garaneen marka aniga waxaan dhahay Soomaalida cusbad inaan nahay laga yaabo dawladda ka sheekeynaysa marka waxa waa intaas waa kaftan run ahaantii su'aasha oo mahad weydiiyo su'aal weyn oo kale waqti badan ay u baahan tahay iyo baaris fara badan anagoo dhan su'aalo adag u weydiiyay waxaan nahay horta Soomaali hadaan nahay waxaan nahay dad dalkooda ku faana afkaar baa naloo dhisay waxaan la yiri waxaan lahaan jirnay ciidamadii Soomaaliya Afrika ugu xooga badnaa waxaan leenahay badda ugu dheer Afrika waxaan leenahay webiyo badan beero waxaan nahay dad qani ah waxyaabo fara badan haysta okay ha ahaato waa macquul waxyaabaha qaarna waa sax badda oo kale laakiin runtii markaan fiirino waxaan nahay dad weligood maalintii xurriyad la qaatay ilaa ay hadda dad weligood isbixiyay manihin budgetkeena dawladda kala lacag nagu bixin jiray oo nabiil jiray marka wanaagan la buunbuuniyo sidoo kale wuxuu naga indhatirayaa xumaanta 2 sano ka hor bay aheedaan u malaynayaa waxaan fiirsanaynay gabar Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaysa ciyaarta orodada markaas baa gabadhii waxay gashay dadkii qofkii ugu dambeeyay bay aad uga dib dhacday markaas baa wiil wuxuu yiri meesh fadhiyaan ku tuhmaa inuu qof aqli badan yahay gabadhan hadaan ahaan lahaa waa isdili lahaa marka waxaan iri haddaba waa isdili kartaa markaas uu yiri maxaad ii tiri waxaan iri waxaad ka soo jeedaa dal qalalaasaha kaga jira kaalinta koowaad dib u dhac kaga jira kaalinta koowaad musuqmaasuq kaga jira kaalinta koowaad cimri degdeg kaga jira kaalinta saddexaad faqrinimada kaga jira kaalinta labaad dalkaaga gabadhan kaalintaas gashay dalkay ka turjunta dalkaaga oo dhan baa saas ah marka inta gabadha la eegi lahaa waxa fiican Soomaali intaan meel istaagna aan faanfaani lahayn inaan annaga is eegno horta ma nahay dad gabadhaas xukmin kara maya marka Soomaali mar walba oo xaflad la dhigo sida 1 July oo kale tii hadda la soo dhaafay meel baan joogay qof baa hadlay oo gobonadoonkii iyo Soomaali sida u wanaagsaneed iyo waxyaabahaas ka hadlayo markaas baa hadalkii markuu dhameystay baa wuxuu yiri Soomaaliya ha noolaato dadkii Soomaaliya ha noolaato laga ma daba dhihin wuu filaa in laga daba dhaho markaas ku celi ma dhahdaan Soomaaliya ha noolaato ma wadaniinta idinku yaraatay marka wiil baa istaagay wuxuu yiri adeer sheeka kala ma noo haysta ciyaartaas kuma noolaanaysa waa runtiis ciyaartaas kuma noolaanaysa Soomaaliya haddaan ka hadalno taariikhdeena Soomaaliya oo dhan marka runta laga sheego waa bulsho reer miyi ahayd oo dawladda ayaga waxay ahaadaan qabaa'il dawladda ah lahaa kadib gumaysi baa noo yimid kadib waxaan soo marnay 9 sano oo musuqmaasuq ah kadib waxaan soo marnay 22 sano oo xukun caburin ah military ah kadib waxaan soo marnay 27 sano oo qalalaasay dagaal ah haddii su'aashaas is weydiiso waa taariikhda Soomaaliya si dhab ah u akhriso dawladnimo ma soo martay su'aashaas jawaabteeda dawladnimo waxa laga wado intaana badan waan naqaan laakiin ku celis ahaan u sheegaya dawladnimo waxay tahay markaan fahanno markaas baan su'aasha ka jawaabi karnaa dawladnimo waxa qeexay nin la yiraahdo Max Weber oo Jarmal u dhashay oo wuxuu qoray book la yiraahdo Politics as Vocation 1919 markaas uu dawladnimada casriga ah uu qeexay wuxuu yiri waa hay'ad ama waa nidaam awoodda maquuninta ku leh awoodda maquuninta oo sharci ah ku leh dhul cayiman marka saddex shay baa ugu muhiimsan waa nidaam kama hadlin qof kama hadlin madax kama hadlin boqor wuxuu ka hadlay nidaam dadka way baxaan way maadaan waa la doortaa waa la ciyaar way dhintaan wuxuu ka hadlay nidaam kan labaad waa awoodda maquuninta laga moodo handadaada dadka la handado waxa laga wadaa awoodda bixinta adeegyada amniga sida xuduudaha in la ilaaliyo iyo sida in muwaadiniinta la ilaaliyo sababtoo taas ugu soo koobay waxay tahay adeegyada kale u sheegi waayay adeegyada kale NGO-yada iyo hay'adaha iyo dadka caadiga ah way qaban karaan in iskool la dhiso macallin la noqdo wax la baro way sameyn karaan laakiin awoodda militariga iyo booliska wuxuu ugu soo koobay dawlad kaliya sameyn karto
haddii aan gaarigaaga aad dhigato banaanka dawladda ay ku siiso ticket ayada awoodii maquuninta leh laakiin awooddaas maquuninta ah wuxuu ku daray wuxuu yiri sharciyad waa inay sharciyad yeelataa sharciyada yeelanayso maxay tahay waa in sharci awoodda shacabka ka dhaxeeyo shacabka iyo bulshada iyo dawladda iyo bulshada iyo ninka xukunka haya awood kala xirta inay jirto sharciyadaas ama waxay ku fasaxaysaa inaad la xisaabtanto ama inaad doorato sanado kadib ama si un waa ula xisaabtami kartaa tusaale ahaan haddii ay dawladda ku siiso maanta ganaax yar oo baabuurkaaga meel qaldan baad dhigta la yiraahdo waxaa ku furan inaad maxkamad tagto marka awoodii maquuninta dawladda kuma takrifali karto sababtoo hadday qaldan tahay waxaa jooga xaakimkaa sax marka dawladnimada waxay ka kooban tahay sida uu qeexay intaas laakiin laba qayb baa loo qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa institution of power waa hay'adii awoodda qaybna waxa la yiraahdaa institution of constraint waa qaybta awoodda xadida haddii dawladdii aysan labadaas lahayn dawlad maaha marka Soomaali haddaan nahay dhowrkii sanadood ee aan jirnay inta taariikhdii koobneed aan sheegay dawladnimo noocaas ma soo martay maya nama soo marin marka su'aasha waxay tahay haddii ayna soo marin dadkii hore maxay sameyn jireen oo Israa'iil maxay sameyn jirtay oo maxay sameyn jirtay dawladihii maamuladii la soo dhaafay kii militariga ah waxaan heesa ah dhacay maxay sameyn jireen waxay sameyn jireen wax la yiraahdo midaan hadda ka hadlay waa state miday sameyn jireen waa nation waxay sameyn jireen qaran iyo dawladna way kala yihiin Soomaaliya hadaan nahayna ereyada nooma kala aha waxay raadin jireen dad Soomaaliyeed oo gob ah oo xur ah oo dhulkooda ay ayagu leeyihiin oo leh dhaqan iyo af ka madax bannaan dawladaha kale oo meel ku nool lagama fikirin marka inaad dawlad state inaad dhisto waxay la mid tahay inaad guri dhisto adigoon ka fikirin bacida digi doonto laakiin haddii aad dhisayso qaran waxaad dhisaysaa dadkii gurigaas degi lahaa marka Soomaaliya waxay lahayd waa nation bay dhisaysa nation building qaran baan dhisaynay waa sababta keentay in xuduudaha wadamada dhulalka naga maqan aan raadino waa sababta keentay in Soomaali hal qora la yiraahdo waa sababta keentay in la baahiyo fikradda Soomaali waa isku luuqad isku diin isku af waxaan dhisaynay cultural identity dad isku mid ah marka tiiba annaga iyo dawladnimadii gaarin bay wixii naga halaabeen marka hadda maadaama aan joogno dawladnimadii Soomaaliya dhismaheeda waxa isku haystaa Soomaaliya waa dal muhiim ah laazim waa inay dawlad ka dhisantaa laakiin waxa isku hayr dhowr groupka ugu horeeya waa beesha caalamka hadaan dhahno beesha caalamka marka dhibka annagu uu nagu kooban yahay sida 94 ilaa 2006 inta u dhaxaysay dhibka markuu annaga nagu kooban yahay annaga isdilayno isbaaraan isu dhiganayno balaa isku sameeynayno dawladaha dariska noo soo diraan ayagana kala maamulo laakiin marka xaaladdu ay gaarto dhib ka dhaca Soomaaliya oo ayaga saameyn ku yeesha sida burcad badeeda argagixisada markaas ayaga toos noogu yimaado annaga noo yimaadaan waxay rabaan in dhisaan marka ay waxbaan dhisaynaa markay dhahayaanna waxay u qaybiyaan state building laba nooca ugu horeeya waxa la yiraahdaa ay dib nugul waxay dhahan team problem kaas wuxuu waa dawlad meel ka dhisan oo nugul oo u baahan kaliya in tababaray lacag la siiyo mid kale waxa la yiraahdaa dib qalafsan ama wicked problem meesh hadii aan wax u taliyaba jirin ama qofka u talin lahaa uu madax adag yahay sida Saddam Hussein oo ama meesha wax u taliyaba aan jirin sida Soomaaliya oo kale haddana waxay ka caawiyaan lahayn way imaanayaan ama kay hore duminayaan ama mid cusub ay dhisayaan marka annaga haddaan Soomaali nahay ayagu waxay rabaan in ay Soomaaliya ka hirgeliyaan nidaam sharciyad shacabka hortooda ku leh oo state ah oo antii hore ahayn dictatorship ahayn laakiin haddana ujeedooyin ki ayaga ay leeyihiin dhibaatadan soo gaaraysana ka xakameyn kara wadankeena hayn kara haddana aan dawladihii iyo dadkii dariska la ahaa iyo intay aysan halis ku noqon wax aad u xoog badan oo dawladahaas qalqal geliyana inaysan meesha ka dhismin marka si aysan taas u dhicin waxay keenaan dad ayaga u shaqeeya oo ama afkaartooda leh Iraq ay ka dhacaysaa Afghanistan ay ka dhacaysaa Soomaaliya way ka dhici kartaa sababta ay dadkaas u keenayaan waa dadkaas qof ma haduu lacag ku geliyo wuxuu rabaa inaad u shaqeyso marka taas waa ayaga siday ayagu rabaan marka siday ayagu rabaan sabab ma suura galayso inta badan sababtoo ah waxa dhici karta
in waxaan isku haysanaba isbedelaan mar qabiilaan isku haysanaa mar hogaamiye kooxdaan isku haysanaa mar islaami iyo shabaab aan isku haysanaa mar dhibkeena isbedbedela ama waxa laga yaabaa inay badan yihiin dadka Soomaaliya ku shaqalay ee arrimaheeda hogaamiyaashii baa badan dadkii baa badan NGO-ladii baa badan dadkii lagala tashan lahaa wixii badan stakeholders baa fara badan haddaad labadan aad wax ka dhaadhiciso mid kale meesha soo gooday ama sidoo kale waxa jira Soomaalidii baan booga baa jira oo Soomaalida dhex yaala marka sidaas darteed sida World Bank uu sheegay dawladda sid waxay qaadanaysaa 20 sano mid baa wuxuu yiri 500 sano qaadanaysaa marka hawshaas ay wadaan way socotaa laakiin sidoo kale waxa jira dad Soomaaliyeed oo raba in ay dawlad dhisaan dadka Soomaaliyeed oo raba in ay dawlad dhisaan ma rabaan dawlad ayaga la xisaabtanta shacab awood leh doorasho la galo ma rabaan sababtoo ah qofka siyaasiga wuxuu ugu jecel yahay adduunka nin Mareykan ah baa leeyahay hadaa siyaasi tahay shaqada maxay tahay wuxuu shaqadeedu waxay tahay in la doorto haddana la doorto hawl kale ma leeyahay aniga waxaan ka shaqeeyaa waa inta sadaan wax sameeynaayna waa lagu dooranayaa haddaan wax diidaayna waa lagu dooranayaa marka qofka siyaasiga Soomaaliga ah haddii adiga state disliirado ma dhisaayo wuxuu dhisayaa wuxuu meesha ku joogayo mar walba marka waa sababta uusan u ogoleyn mararka qaarkood maamulada gobolada Soomaaliya ka dhisan ama dawladda federaalka oo kale in la bedelo ma rabo inuu nidaam doorasho iyo dawladnimo dhiso laakiin taas uma fulinayo beesha caalamka laakiin wuxuu fulinayaa danaha kale groupkaas uu jira siyaasiyiinta Soomaalida group kale oo shabaab ayagana waa nidaam islaami baan meesha ka hirgelinayna dhahay way jiraan marka haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed hal su'aal oo aan isweydiiyaa jirto inta badan dagaaladan waxaa nooga dhintay ugu yaraan 1 milyan oo qof 2 milyan oo qofood way qaxeen dhibaatooyin fara badan baa nagu dhacay dad fara badan baa hantidooda ku baaba'day waan ognahay inay dhibaato tahay laakiin positive wax walba laga eegaa la dhahay haddii aan dhanka positive ka eegno dagaaladan sokeeye ee dhacay muxuu yahay halka shay ee kaliya aan ka faa'iidi karno halka shay ee kaliya aan ka faa'iidi karno waa in laf si qaldan u kabnayd inta jabtay hadda aan haysano fursad aan dib si sax ugu kabi karno laakiin ma socoto sababtan u socon waxay tahay haddaan nahay shacabkii Soomaaliyeed waxaan laga rabaa inaan wacyi yeelano oo idaacadaha wacyi dhisaan sida walaalkii Xeef uu sheegay wax wacyi dhisay ma leh haddii wacyi la dhisi lahaa shacabka ma taageeri lahayn dad qaar oo madaxweyne hebel baa la doortay sax iyo qalad waan ku taageerayaa ama mucaarad hebel baa la doortay sax iyo qalad waan ku taageerayaa ma dhihi lahayn dad ba hadda waxay ku dhahayaan maamulka dawladda markuu taageero walaal maxaad u taageeraysaa ama mucaarad maxaad u taageeraysaa markaas uu ku leeyahay dadkan dadkii saxda sameyn jiray waa run ahaantii aniga dadkii dagaalada sokeeye ku soo koraan ku jira xamar markaan joognay nin isbaaray u taala qof taageeri jiray hogaamiye ku xid dad dilay qof taageeri jiray taageerada muhiim ma aha inay ahaato wax fiican mar walba qofka qof taageero uu helayaa marka daan shacabnahay inuu wacyi noo dhismo way fiicnaan lahayd midda kale shacabka iyo media wacyi geliya dadka in dheer garadka dadka wax sax u sheega sidoo kale waxa weelisa mucaaradada qofka xilka hayawaan ba garanay dadku wuxuu rabaa inuu caburiyo wuxuu rabaa inuu nidaam asaga u gaar sameesto wuxuu rabaa inuu meesha sii joogo laakiin qofka mucaaradka ah asagana waxa laga rabay in uu dadkan waxyaabaha ay sameynayaan si dhab ah intuu u akhriyo xitaa haday warqad soo saaraan inuu si sax ah u akhriyo oo wixii ka jawaabo laakiin mucaaradkii saas ma waxay sameeyaan wax la dhaho incitement boogay faagfaagan tusaale ahaan waxaad arkaysaa dawladdii baa Kigali wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya baa baxay wuxuu tagay Kigali wuxuu soo saxiixay heshiis oo laga yaabo in ganacsatada Soomaaliyeed oo dhibaato ku keeno qof mucaarad ka hadla ma arkin laakiin mucaaradkii maxay ka hadlayaan wiilal under 17 jiro oo ciyaaro soo ciyaaray bajaaj baa la saaray leeyahay wiilashii baa bajaaj la saaray laakiin kama hadlayaan waxyaabaha muhiimka ah dawladda soo sameeyay kama hadlayaan nidaamka IMF ay dawladda Soomaaliyeed ay dawladda hadda jirta ay sameynayso iyo dhibaatada ay Soomaaliya ku keeni doonto laakiin waxay ka hadlayaan Xasan Cali Khayre oo aan ooynayo xambaarsan marka mucaaradkii asagana ma dhisaayo maxay ahayd arrintaas nin saaxiibkayga ah oo hadda meesha aan joogin oo markii hore lagu casuumay dhaalay yiraahdo wuxuu yiri mucaarad wuxuu qaybsamaa laba mucaarad Soomaaliyeed mid wuxuu yiri waxa la dhahaa mucaarad jageed mid kale waxa la dhahaa mucaarad beeseed marka wuxuu yiri mucaarad jageed hadii la siiyo lacag uu baxaya kan kale hadii la siiyo jago asagana uu baxaya marka nin caalim ah oo masri ah oo liidaado dhamaantiin aad wada garanaysaan Mustafa Maxamuud liidaado baa wuxuu qoray kitaab liidaado al-islam siyasi wal ma'raka al-qadima markaas uu yiri hadii qofka muslimka ah ay
riyadiisu noqoto sidoo xukum ku gaari lahaa islaamnimadiisa buu weynayaa intuusan xukun ka helin qofka Soomaaliga ah ee wadaniga ah hadii ay noqoto inuu jaga daba ordo xitaa si walba wadani u yahay wadaninimadiisa wuxuu weynayaa asagoo jagadii helin marka mucaaradku waxa wanaagsan ayagana inay ka qayb qaataan dawladnimada arrin oo meeshan maanta oo dhan laga hadlayo jirto oo la yiraahdo qabyaalad baa dawladii hortaagan iyo wax noocaas aniga run ahaantii ma qabo fikirkaas sababtoo ah ka soo qaad dawladda Soomaaliyeed inay qof ba engineer ah wuxuu rabay inuu dhiso gurigan la doorto yiri dadka kalena waxay degan yihiin meel buushash ah dadkan buushashkan ka soo guurinayo guri baan u dhisayaa uu yiri laakiin hadduu lacala guriga dhisi lahaa dadku way soo guuri lahaayeen laakiin wuxuu ku fashilmay inuu gurigii dhiso kadib intuu shacabka soo istaago wuxuu leeyahay ayagoon buushashkaas la dumin aniga guri ma ba dhisi karo marka anaga wadamadan joogno dad isku diin dad aan isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku luqad ahayn xitaa la isku wado oo dawladnimadii ay ka sareyso Soomaaliya waxaan leenahay dawladnimadii waxay ka hooseysaa qabiilkiiba taasna waa run ahaantii fikir qaldan marka dhowr jeer baan ku soo celiyay waxaan iri taariikhda Soomaaliya si sax ah in loo akhriyo ku fiican tahay oo faankana laga daayo beentana laga daayo boonboonintana laga daayo cadaalad darradana laga daayo sababtoo ah waa meeshii aan ka ogaan lahayn inay wax naga saxsan yihiin wax noo saxsan yihiin iyo inay wax naga qaldan yihiin haddii dib loo akhriyo waxa laga yaabaa aragti wanaagsan inaad ka hesho nin Arab ah anigoo Turki jooga waxaan helay 2006 buug duluf ah oo af Carabi ku qoran oo la yiraahdo mahzalat aqli al-bashari dadka aqli xumaanto ibn aadan oo dhan aqli xumaantiisu ka sheekeynaya markaas uu yiri qayb yar oo Carabta uga hadlaya jirtay qaybtaas waxaan soo xusuustay ayaan hore anigoo wax akhrinay laba buug oo Soomaali laga qoray oo taariikhdooda ka sheekeynaya anigoo raba inaan wax ka ogaado taariikhda Soomaaliya iyo sida Soomaalidu arintaas uga hadlayso ba waxaan arkay buug ka hadlaya Siyaad Barre iyo burburkiisa buugga kalena Siyaad Barre iyo siday wax u burbureen oo ka hadlaya mid baa markuu wuxuu yiri Siyaad Barre wuxuu ahaa dictator jabhadihii burbureen wadaniyiin bay ahaayeen mid kale wuxuu yiri Siyaad Barre wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan dad waalan oo qabyaaladiist ah burburiyay marka taariikhdii dhameed mid wuxuu ka kooban yahay 10 chapter mid kale wuxuu ka kooban yahay 12 chapter labadooda waxa looga hadlayaa wax noocaas marka ninkaas yiraahdo Ali al-Wardi waxaan ku soo xusuustay kelimo uu waagaas buugaas aan ka akhriyay oo ahayd dadka xadaarada leh taariikhaha way akhriyaan markay akhriyaanna waxay ka faa'iidaan wixii xumaa in laga waantoogo wixii fiicnaana la dhiirigeliyo laakiin annaga haddaan nahay shacabka ku nool dunidan westiga ahayn taariikhda waan akhrinaa waana qornaa waxaana u qornaa inaan dhahno hebel baa saxsanaa hebelna waa qaldanaa hebel baa wadani ahaa hebel baa wuxuu ahaa daalim jiilka soo socdana waxaan u kaydinaa cuqdad aanan weligood ka dhamaanin sababtoo ah taariikhda waxba kama baran marka haddii aad fiiriso marka Soomaali taariikhdeeda sababta aan dawladnimada u weynayba waa in taariikhda inaga qaldan tahay wixii aan noo saxsanayn marka Soomaaliya waxa wanaagsan hadda sidii aan haday sheegay waxaan haysanaa jiilka cusub ee dhalan doona ee jiilka hadda joogo waxay haystaan fursad ah laftii sida qaldan u kabnayd in haday jabtay ay si sax u kabaan waan lagu noqon madaxweyne walba oo Soomaaliya ama ra'iisul wasaare walba ama qof walba oo mas'uul Soomaali intuu meel soo istaago wuxuu leeyahay waabaan waxaan ahaan jirnay ciidamada Afrika ugu badan waabaan dhaqaale lahaan jirnay waabaan sidaan ahaan jirnay waxa wanaagsan in aan dib u noqono tusaalaan dib u heshiisiin baa kamid ah waxa kamid ah dib u habeen waxa kamid ah dib u dhisid waxa kamid ah wax la soo dhaafay oo lagu noqonayo haba yaraatee ma jiraan wax walba haddaan dunia casri joognaa jiilka cusub haday meeshan fadhiyaan haddaan waxaan joognaa dunia casri ah waxaan haysanaa teknolojiyad waxaan haysanaa afkaar waxaan haysanaa aqoon jiilka cusub waxay sameyn karaan in wixii la soo dhaafay gabi ahaan xumaan iyo samaan wixii samaan inta laga qaato wixii xumaan ah laga tago aan la dhihin waxaan u noqonaynaa dib adduun dib u shaqeeyo ma jiro dadku waxay u shaqeeyaan hore u socdaan marka erayadan Cabdifataax erayadu ka hadlayo kala dib u heshiisiin dibta ka bixi heshiisiin ka dhig qofkii dib u dhis ka hadlayo dib ka bixi dhismo ka dhig qof marka philosophy-gan ah in dib loo noqdo waa inaad naga ilaalisaan aad iyo aad u